Hello everyone, waydiin salaami saaxiibayaal. Magacaygu waa Qalboos. Haddii aad channelkan ku cusub tahay, please subscribe saar, sidoo kalena share dheh si asxaab badan u gaadho. The only videogan aan duubayo, sababta aan u duubayo waxa weeye wanimay hawadaynu Soomaali nahay. Marka koowaad wuxuu iskaga boodnaa wixii dhinaca uma eegno. Gacmahayguna waxa weeye wanimayaw ICT way modelis badan tahay. So markaad model doonayso inaad barato koorta rootkiisa ogow iskaga boodinine kiisa labaad waxaad ogtaa siduu u dhaqaaqo ma New York u dhaqaaqaa ma London u dhaqaaqaa sababahay nimanka New York tradegaraya ay uga profitable badan yihiin nimankan London tradegaraya waxa weeye waxay eegaan wuxuu London soo sameeyey so way ogyihiin dee siduu suuq markaa u dhaqaaqayo iminka haddii uu London ku noqdo uu continuation iskaga socdo reversal bay New York sugayaan so hadduu London consolidation noqdona oo like range iska galana New York bay saxa sugayaan so mar kastaba iyagu New York London wuxuu sameeyey ogaanayaan marka haddii aad amba model amba aad ku dhegan tahay maxaa la dhahaa ama model aad doonayso inaad barato horta 3 bilood 2 bilood baa kasi ku samee markiiba koona kula soo boodin 2 trade winkaaga dhac bro ma ogaan siduu dhaqaaqo laakiin markaad note badan aad ka qorato oo aad ogaato siduu dhaqaaqo waad fahmaysaa moog laakiin haddii wixii aad ka haysan concept ka haysan oo aad in yaro horta new backcasting la sheegaa dhibta isaga keena oo dad qofkii backcasting mu sameynaya wixii wad aragtaa moogta laakiin marka real market noqoto wixii ma arkaysa markaan yaw advice-kan dhalinyartan siinaya waxa weeye horta waxaan haddaad doonayso inaad ogaato backcasting ku samee oo 3 months at least haddaanu inaan New York ku guuran doonaya New York aan trade garayo hadda at least month backcasting baan ku sameynayay oo waxaan ogaanayay siduu dhaqaaqo midda kale lacag ahaan forex-ka waa in iska dhaafan rabaa sababtu waxa weeye waniyo reach-ka misaas iga gelaysaa hadda imka haddaynu tagno NQ waxaa laga yaabaa inay daadanayso imka haddaynu NQ tagno luka dhawaaqyadaasaa u fiican bay u bixinaysaa luka this low inversion way socotay luka sax so markaa hadda anugu inaan lacagta aan baakisi ku sameeyaan rabaa aan arko sidee u dhaqaaqdo dawaa ay u dhaqaaqdo oo ma wax la dhaha macro aan ku trade garayo so marka hadalkayga hadda wuxuu kusoo koobnaanaya oo aan leeyahay wanimayahow haddii aad doonaysa inay waxaan nii shaqeeyaan baakistin 3 months ku sameeya marka la baakis sameeya waa 3 months waxaan daawada chartski daawada si u dhaqaaqdo daawada teamka frameka dhaqda manipulation goormu dhacaa soo la dhaqo badan aniyo dadku waxa u yaqaanaan egg soo asian so accumulation ma noqdo asian accumulation ma noqdo manipulation bay alla ka badan eegtaa so distribution bay so dawa power of 3 waxa arkaynaa isaga model kale oo CRT loo bixiyay oo waa waxay delivery oo ruuxaasi wax kale ma haddaad daawatay mentorship ma core contact 2016 haddaad odayga download dawa power of 3 waa accumulation so this waxuu noqonayaa halkan aan leeyahay lowgan la qaaday intan wuxuu bixiyey intan buu bixiyey trouble so and then like this OP gan buu ka qaadanaysaa soo qaadanaya so de Soomaalina wallahi wixii way iskaga boodayna anagoo aan hubin siduu shaqeynaynaan baran at least aan win rate-kiisa ayna ogeyn ICT markii la bilaabayay ICT dadku markay baranayeen they never know ma ogeyn bari section bay isticmaalayeen macallimiin bay isticmaalayeen wax noocaas ay isticmaalayeen so markii ay soo boodeen haddana imika qof ICT ku jira dad weydiiso wuxuu ku dhahayaa ICT xagad ka baratay waad dhahaysaa odaygu ku dhahaya hadda odayga cidba ma aqoonba waad saa odayga ku baratay baad dhahaysaa magaciisa sheeg baad dhahaysaa wuxuu ku dhahaya ICT magaciisa aanu garanayn Michael baanu garanayn
yeah marka mar haddii aad hadda look at imika this loo socdaan ku tusayaa so two difference aan arkaan ku tusayaa hadda waxaan arkaa in SMTD-ga soo la sameeyey loo uu baraysku like this noqonayo halkan shift noqonayso saa la isaw socdo saas waa oo wada gaara sidoo kalena arkana waxa weeye baraysku wuxuu sameynayaa this high baa la target garanayaa this high baan target garanayaa and then waa internal fair value gap internal fair value gap way so like this slogan la qaado so noocaasina waa wado marka si kastaba waa inaad suuqi u aragtaa so haddaan dhigaso imika geeyo luka dhigaso high bay qaaday oo waxaa soo dirayay this weekend baa soo dirayay waa kan haddaad u jeedo this weekend soo dirayay waxay ahayd bias waa kan waxa la miyaw fair value gap bay joogtaa this high baa la qaadayaa sidoo kalena iyadana GBUSD waa kan iyadoo la qaaday waxaan jeedaa DXY waxaa la sameeyey fair value gap and then waxaa la sameeyey internal swing high then haddana this high fair value gap ka imanaysaa like this haddii saas dhici weydo waxaa dhacaysa in SMT-gaas high qaaday iyaduna low ku fashilantay so this lowgan baa swing lowgan baa shift noo noqonaya and then we look in sell so saas way labada mid uma dhacaysa so suuqii waa kan idana lacagtan waa GBUSD halkan tagto waxa weeye internal fair value gap ay joogtaa xaroonimayo this slogan baa la qaadaya okay waxaba la qaaday maalinkii baaba la qaaday time-ku waa kan waxaan ku wari fair value gap ay joogtaa this slow baa la qaadaya waana soo dirayba so after waxa la qaadayba 2 days waa kan oo waxa la qaadayba muxuu ahaa khamiistiiba loganba waa la qaaday jimciina waa kanba so price-ku so groupka saaxiibada ku jirin linkiga hoose ka soo raac get free bias and the knowledge qalbo CT okay so hadduu saas sameyn waayo saamuu sameynaya so mar kasta we know the price-ku wuxuu sameynayo iyo siduu dhaqaaqayo waan la soconnaa so waxaan baakasi kusoo sameynay waxaanu baranay so maaha wax nagu cusub so price-ku haddaanu saas sameynayn naba markaaniyo nimayahow hadda imika this high baan eegaya in la qaado inkastooba looga jiraba laakiin hadda price-ku markan ka soo dirayay isla kan markaan intrigan qaadanayay waa kan this entry stop hunt 50 minute fair value gap baa la joogaa haddaan ku tuso waxaa sameeyey waa kan 50 minute fair value gap and then this high so equal highs kan baa target garanaya equal highs kan baa ii targeta over 50 minute so waxaan dal indhaha ku hayn oo arkayn so don't worry bro waxaan forex waxay ku timaadaa experience aniga iyo kula hadlaya kon waa laga gubaa haddana wax baan ka bartaa so marka mali waa inta kalena dadku badankooda waxay taagayaan mentorshipadan Soomaalida taagayaan so bro xiisa arqalada ka daaya so this low and twar I think in twar tahay so haddii tani dhici weyda no bad saaxib sababtoo lagu riti laga noqdo kale aan jirin so the fair value gap baa iga hooseeya this one waa 1 hour fair value gap baa la jooga so haddii fair value gap waa macquul in halkan 65 minute laga siiyo and then like this so laakiin look at halkan 1 hour shift lama siin so that why aan garanaysaa indhaha ugu haya equal highs kan so this one la soo qaado waa daily fair value gap kan marka saaxiib videogan I think inaan YouTube ka soo dhigi doono but not bad khayr badan baan ii rajeynayaa saaxiibayaal